بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيارتي ذو كحنا برتدي يوتيوب كهنا جافولي صور دواذا بليس هدي أقول عصبته وحن قاعد صنايع أنا سبسكرايب سارته لايك هذا أصحاب هذا أوصي قد بسسي وقصي فائدة استن إن شاء الله ورادي أي اللي جوكتنا بقولك بقول وكم هذا علنايا أصحاب هذا أوصي قد بيها كسي فائدة استن كومنتي جاي يدير قلنا هذا وحي إنتهى إنه هروسي سعده marka maanta maxaa idin wadaa alaab yar oo aad u fudud gurigaagana aad ka helayso timahaagana waxtar aad u leh aan idin wadaa maanta insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan ana way ii shaqeysay waa tijaabiyay marka ii soo shaqeyso aan soo ogaado waxa ay tahay waxa ay tarto aan go'aansaday inaan idin la soo wadaago maadaama gabdhaheena aan inta badan timaha dhibaato badan ku qabno soo meeshan waxaa ku hayaa hada hal qaando oo dhagiyar iyo hal qaando oo bahalka maxaa la dhahayaa حبة رشاد أما شنفح مركا قاب كذا ساس ويالا بهشان آذ ويريرتها وبهال سباميه وكل ما عرفت درير ما شاء الله تبارك الله هذا آذ فائدة وبدنتها دم والبابا هدي العنق هدي كله طب هدي لعاب قابل بقسم استوى كوان فعل دار نوع عن لا عنا إذا كل جد والعنا سيدو كله تود والكريات ما والمرصدا ما شاء الله تبارك الله marka hadda qaabka u isticmaali rabnaa qaabkan dabkan waxaan soo saartay digsi yar waxaan ku soo shubtay hal bakeeri oo biyo marka halka bakeeri biyo marka ku soo shubto waxaan ku soo shubanaa insha Allah halka qaando oo dhagayaraha dhagayaro qof walba yaqaan waxa uu yahay xabad rashaadkan ama shanfaxdaana waxa ka helaysaa meelaha lagu gado xawaashida iyo alaabta ma aragtay daawooyinka daawo-dhareedyada meelaha lagu gado laga helaa marka insha Allah meelahaas ka soo heli doontaan oo ka doonan doontaan marka waa ku soo shubtay halka qaandana waa ku soo shubay oo maxay ahaday xabad rashaadka ahayd ama shanfaxda ahayd marka waa isku karkarinayaan marka telefoon isoo gal sorry waa isku karkarinayaa waqtiga siinaa insha Allah taala marka waxaan rabaa inaan siiyo inta dabka noo saaran tahay talooyin oo ku aadan timaha horta ani waxa ahaa timahayga sababta aan u isticmaalo alaabtan ay ugu shaqeyso waxay ahayd aniga dadka timaha jilicsan oo waxa ah timahooda lugta aysan lahayn qafiifka ee tahay marka timaha nambadana waxa sameeyaan waa jaraa wax yar waa korinaa timi waa ku dadaalaa wax walba marna waa ii dheeraanayaan markay dheeraadaan ka bacdi haddana waa jara meesheedii ku soo noqonaa haddana waxa raadinaa wax kale oo ii shaqeeyo oo maxay ahayd timaha marsado marka maasha Allah baasha aad iyo anfacada had timihii waxa ka dareemaa inuu koriime ay sameynayaan waxa ka dareemaa inay lug ay yeelanayaan waxyaabo kale toodo marka waxa jiro aan ku faa'iiday oo talooyin xagga timaha korintooda ama nafaqeentooda oo ani alxamdulillah aan helay oo YouTube-ka aan ka fiirsaday YouTube-ka waxa waa cilmi badan ayaalo in laga faa'iideysto waaye wixii aad aragto qof walaal oo ku soo sheegan inaad tijaabis way fiican tahay ani gabar ka dhigaystay youtuber taladeedana waa qaatay hadda muddo 3 bilood aan sameeynayo boqol sidii u sheegtay abaayas way ii noqotay soo waxaan rabaa in aan la sii wadaago asxaabteeda oo maxay ani ugu xiran inay ka sii faa'iideystaan ugu horeen waxa waaye saliida timaha ka bacdi la marinayo waxa waaye qalad aad u weyn oo anaga Soomaali ahaan aan ku baraarugsaneyn soo waxa sameeynay timahaaga caaw kala saliid si fiican u marinaysaa saliid nooca isticmaashad nooca ee tahabo waa marinaysaa maxay masarka ku xirnaysaa waa iskaga seexanaysaa bariyo kale waxa sameynaysaa waa ka soo dhaqaysaa shaambada isticmaashada uga soo nadiifinaysaa markii aan nadiifisid timihii aa qaladisid ma marinaysid saliid ma ku celinaysid ma fahantay iyadoo qoyaan yar leh oo qoyaankeeda oo xoogaa shukumaanka ugu qaladisay waa maxay qalajinaysaa wax yar waa shanlaysanaysaa timahaaga isku xiranaysaa dhac hore uga soconaysaa isbuuca ka dambo ama 3 maalmood soo xigto dambo markii aad dhaqaysid haddana saliid marsanaysaa taladeedu waa taas tan labaad waxay tahay in timaha isbuuc mar aafuunaysid oo ama aad kuleysid maxay kaasaha timaha lagu kuleeyo isticmaashid midda kale oo saddexaad waxay tahay taakada timaha ku xiranin taakada timaha waxa sameynaysaa marka meel aadaysid banaan aadaysid laga yaabo mar in isaga xirato isdhahdaan xijaabka ku celinaysaa laakiin gurigaaga marka joogto tintaada halkuus ka dhigo ama laba galaan ka dhigo labadaas mid ku fudud marka aad seexanaysid oo kale tood iyadana waa sameeyay alxamdulillah way shaqeysay timay go'itaanka badnaa oo iga yaraaday waxaana dareemaa in ay baxayaan teeda kale tood shaambooyinka isticmaalaysid iyo saliida isticmaalaysid 6 bilood kasto in hal mar iska bedeshad way fiican tahay
marka 6 bilood mar iska bedel li'aano tinta la qabsanayso adhoowt waxa mu ku darayso marka u soo naqdo digsiga dabka isaarna waa ka soo dajiyay meel iska dhigay subaxii ahayd dhara dhaqaaq qasaaladii waxba ku jiray qada karinaayay waxa ku dhameel iska dhigay way dhareerta waa maasha Allah si fiican isu dhex qaadato waqti fiican siiyay marka waxa sameeynaya maradan yarta ha ku soo shubanaya hada il yar ahayst il yar waxa jirto moogta oo malqabadi ma la malqabad qofta xasuusato malqabada camal ama mara yar malqabada camal qaadanaysa waa ku shubaysaa baaquligaas hoos uga dhiganaysa waa ku miiraysaa marka waa ku miiraysaa si fiican ugu miiraysaa marka aad ku miirto ka bacdi meel la tagaysaa waa ku masaajeynaysaa timaha si fiican ugu masaajeena waa biyahaas waxa aan sheegayo biyahaas timaha si fiican ugu masaajeynaysaa waqti siinaysaa waa ku xiranaysaa marka ku xirato guri tirtirkaaga iyo waxaan ku dhaqdhaqoogaaga iyo shaqadaada iska sii galaysa ilaa hooyaa taha moogtaa marka howlahaaga iska sii galaysa timaha kugu xiran yihiin hadhoobtii oo kale tood shaambada isticmaashada muf ku siisanaysaa waxaan ku dhaw wax yar dafoonay oo ku yaal waa fooneynaysa hadii uu ku ooli shukumaankaaga wax markaa ku qaliso qaleel yar aad dareento ka bacdi waxa sameeynaysaa waa shanlaysanaysaa labada dhinac u xiranaysaa timahaaga maasha Allah tabarakallah marka hadda waa jajabinaya because of baasha waxay leedahay waxa waaye dhareera ka imaanayo xabagay dhalaysaa so marka insha Allah taas saasa uga soo baxnay marka tana raba iidan inaan idinkaga faa'iideeyo maxay ahaydee oil skin cleanser kan maxay ahaydee waxa waaye wuxuu u fiican yahay waa face wash wajiga saliid leh oo aad ugu fiican yahay ina wajigaaga haduu saliid leeyahay hada isticmaasho ma sha Allah tabarakallah waa ka helaysaa anigu ii shaqeeyay maadaama uu ii shaqeeyay waxaan sidoo gabdhaha saliid ku dhibanna iyagana ha kala faa'iideystaan marka waxa waa xoogaa qaali waaye laakiin qaaligiisa waxa ka muhiimsan waxa uu ku qabanayo aad uga badan marka sida maxay ahayd shower gel-ka ma aragtay camal uu jileec u yahay face washada kale waxa dareemaysaa in xoogaa adeeg yihiin laakiin aad u jilicsan yahay marka ma sha Allah waxa rajeynaa inaad soo tijaabin doontaan soo dhawaada akhyaarteeda mahadsantiin